Waadhibanayaal ka cabanaya guryaha kiradooda oo qaaliyowday waxay ka shaqeeyaan xirfadda loo yaqaan harqaanlayaasha oo marka aad fiiriso in reer laga bilo ay noqonayso xirfad aad u adag balse laakiin magaalada Jigjiga caasimadda deegaanka Soomaalida ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay la daaladhacaysa sixir barre baahsan ayadoo si guud deegaanka Soomaalida loogu jiro abaar baahsan oo saameyn ku yeelatay nolosha bulshada ayaa haddana ganacsatada danyartii ay sheegayaan inayna kaalmo ka helin dawladda isla markaana dadka ganacsiga ay galaan guryahooda ay kirada ku qaaliyeen waxaan wax ka weydiin doonaa dareenkooda saako aan ku soo booqanay goobaha ay ka shaqeeyaan magacaygu waa Bashiir Maxamed Xasan waxaanu ka cabanaynaa sicir bararka baahsan ee magaalada ka jira gaar ahaan dadka danyarka ah ee magaalada xirfadlayaasha kiradii baa la qaaliyay guri kasta oo dadka danyarka galaan bil kasta 1 riyaal baa lagu daraa bisha markaad 1 lagu daray aad ka fikirto bishii talo 1 ma soo yiri mise aad ku fikirto bisha dambana 1 bay ku daraysaa hadii macnaha aad yara waxaysana ka baxbay ku oranaysaa hadii aad ka baxdo guri kala raasatana de waxa weeyaan dadkii guryaha dadka ciyaalka wata ma doonaan marka waxa weeyaan ciyaal ma leedahay ciyaal waan leeyahay wuxuu ilaahay waan leeyahay hadaba anu guri kiraa kuma inaan leeyahay dadku waxay rabaan dad aan dhalin oo madheelisiyaha iyo askaabale rabaan iyo aroosyo dadka danyarta ciyaalka wadata waxba laga ma kareenayo bil kasta lacag baa lagu darayaa ilaahay maxamed xaashi baa la ilaahay waxaan hay dadka danyarta aan kamid ahay waxaan u hadlayaa bulshada Soomaaliyeed ee danyarta ayaan u hadlayaa aan danyarta kamid ahay horta bulshadu aad bay isugu dhiban tahay dadka danyarta aad bay u dhiban yihiin bulsho waxay noqotay danyartii aan isku naxariisanin isku turaynin bulshadu waxa fiican in bulsho isku turaysa ay noqoto dadkooda danyarta in loo turo horta wax isku turayay ma jirto bulsho isku turaysa ma aha bulshada dawladuna dadka danyarta kama warhayso hoosuma eegayso waxa la dhahaa liimaan baa la dhahaa waxaan ku shaqeeyaa farsamada harqaanka haddii aan ka hadlo guryaha kirada magaalada Jigjiga guryaha kirada wallahi dadkanagii maartay dadka masaakiinta guryaha kiradu marba marka dambayso waa lagu daraa maalin kasta bil kasta markaad bishan aad maartay kirada bixiso ee lagu dhaho waa 2000 hadana waxa lagu waa 1500 hadana waxa lagu waa 3000 hadana waxa lagu waa 4000 hadda magaalada guryaha waxa lagu galaa 100% waxa lagu galaa 3000 baa lagu galaa meelaha qaarkood waxa lagu galaa 4000 baa lagu galaa waa halkii qol yaa 3000 oo bira waayidii hore imku wajiraan xaafada lagu galo 2000 waa la soo helayaa oo weerihiin baa la dhigi karaa marka waxaan ka hadlayaa guryaha kirada oo marba marka dambaysa lagu soo danyartani waxay baaq cod dheer ugu dirayaan dawladda iyo ganacsatada iyo cid kasta oo wax ka qaban kara arrinkooda inay gacan ka geystaan ama ay wax u qabtaan guryaha kiradooda la qaaliyo waxa ugu daran ay ka cabanayaan waxayna sheegayaan goobaha ay ku ganacsadaan iyo sidoo kale goobaha ay degan yihiin ama reerahooda u degan yihiin in kirada si xad dhaaf loogu daray dawladda waxaan ka codsanaynaa maadaama danyarnahay oo waxa weeye mid ganacsi yar aan nahay oo maamulkana soo saarno kiradin ay soo noqotay in loo sameeyo guryo ay dawladdu leedahay kirooyinkooda jaban yihiin oo iska bixin karo haddii ay sidan ku socoto magaalada dad yar baa soo haray waa la kala qaxaya waxa loo kala qaxayaa sicir barar iyo kirooyinkii oo waxa weeyaan hawada gale waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha maayirka magaalada dhammaan intii ay dadkan ay khuseeyaan in arrinta xil iska saaraan oo guryo ay dawladdu leedahay oo kirada jabanta ay noo sameeyaan haddii kaloon ka in dadka guryaha kireeya ciishad la wada og yahay lagu kireeyo oo magaalada lagu wada noolaado marka waxaan ka codsanaynaa cid kasta ay khusayso in dadkan masaakiinta anigu aan kamid ahay in loo sameeyo condominium ama guryo jaban ay dawladdu leedahay haddii la helayo haddii kale dawladdu wax ka qabato oo qiimo fiksira lagu soo koobo oo maartay qabalayada magaalada inta loo sheego maamulka magaalada Jigjiga in dadka kirolayaasha ka cabanaya inta maartay qabalayada ay soo gudbistaan in hawsha wax laga qabto oo loo dadka kirada u jabiya bil kasta 500 baa lagu dari biyo ma laha lagu dhihi waaye biyo ma ahan leerkii bixi baa lagu dhihi in 50 riyaal ama 100 riyaal bish geesta kale dadka meesha ka adeegta ama dharka ka tosha oo wax ka weydiina iyagana dareenkooda ayaa sheegay in laba jibaar laga qaado qiimihii markii hore loogu tali jiray dharka dadka waxa kamid ah arday dhigata iskoolaadka oo iyagu aan haysanin dabcan waxay ku iskaga bixiyaan ama ay qiimahan saraha u kacay lagu talanayo dariiska lagu tagayo iskoolka inay iska bixiyaan ama aynan itaalkooda ahayn maadaama aynan ahayn dad shaqaysta waxaan nahay dadka macaamiisha ee meheradan ku xidhan
marka sidaastay waad u jeedaa hadda dariiskana wataa dariiska barigeeda waxaad tolmiisu wuxuu ahaa 20 riyaal buu ahaa meelahaas haduu doon ugu yaraan 15 buu ahaa laakiin imika wuxuu marayaa qiimihiisu 50 buu marayaa arday baan ahay hadda ayaan xaafadda ka soo baxay dariiska waan tolanhay marka ayaga hadda qiimahan waxaan ugu soo diyaar garoobay lacag aad meelaha 20 riyaal laakiin si waxa qiimihiisu waxa la dhigay 50 riyaal yaa qiimahaas la wada anagu qiimahan maadaama aan ardaynahay ma awoodna markii kirada lagu qaaliyo bish larka ku reeyaan lagu daro anaguna shaygii boqolka shay kontonka boqol baan ka dhignay oo aan laba jibaar geesta kale waxaan isku daynay inaan wax ka ogaano cabashadan ay gudbinayaan dadka danyarta ee ganacsatada kuwaas oo ka ganacsada xirfadda loo yaqaano harqaanayaasha xabiisyada ay qusayso si aan wax uga weydiino arrinkan iyo sidii wax looga qaban lahaa dadkan danyarta ee guryaha kiradooda qaaliga ku noqotay laakiin waqtigan waa waqti kulul oo cadad aad u kulushahay ayaana noo suurtagelin aan la kulanno mas'uuliyiinta laakiin waxay rajaynayaan dadkan danyarta ee cabashada gudbisanaya inay dawladdu wax u qaban doonto isla markaana ay ka soo jawaabi doonto baaqa ay u jeediyeen ee ku aadan sidii loogu sameyn lahaa guryaha ay dawladdu iyadu ay ama leedahay ama kirada laga jabiyay Muxudiin Aadan Maxamed Muxudiin Xarago warbaahinta RTN jigjiga dahabshiil oo la jaan qaadaya isbeddelka tiknoolajiyadda kuna fududaynaya hanaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda kuu soo kordhiyey in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda Yurub abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website-ka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikimo gudahoodu ku helayaa adeegga e-dahab ee moobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil ama waxa uu ka qaadan karaa dhammaan barnaamijyada dahabshiil ee dunida dacaladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed